السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما باهنين إن تانجية أدرنا خلاص way burbureen taangiyadii aan kula dagaalami lahayn noo haya hadalkaas waxaa yidhi wargeys faransiis ah karakateer uu ka qoray musiibada ka dhacday turkiga koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya arrin muujinaya micnaha cidda ay ka qarsoon tahay in yani xaqiiqada ummadaas yani ummad karaahiye iyo nacayb ku nool adiga ka shakhsi ahaan haddii aad u malaynaysa inay yihiin ummad yani mutaxadiriina ilbax ah xaasidnimada iyo xiqdiga shucuubta dambaysa lagu yaqaana micnaha waxyaaba sadad aaminsan tahay waxaa kuu jawaabaya ibraahim qaalin la taliyaha madaxweynaha turkiga erdogan wuxuu ku leeyahay ninkan asagoo faalla ka bixinayo wargeyskan faransiiska waxa uu qoray wuxuu yidhi baraabirada cusub micnaha wuxuushta cusub iska dhex dabaasha iska dhex maquurta xaasidnimadiina karaahiyadiina iska dhex maquurta ku soo dhawaada mawduucan aan oga hadlayno radu ficilada laga bixiyey anigoo kula wadaagi doona kelmad muhiim ah aan rajeynayo wax badan in ay kuu bidhaamin doonto ku saabsan si aad insha allah yani ummadaha siday u fikirayaan mar kale wargeys faransiis ah ayaa sawiray karikateer yani aad caalamkan oga hadlayo يعني ورقيسة بدن أي كهاد لين كأنه إنه كفر حسين أكل سيدي إنه معناها دماشاضة يا سلام يعني الجرير أيا كده عي جريا أيا بربري مصيبة أيا كده عضي هذا بتنجية دي عن كل الدجالة مله المستقبل كا سببته وأجي أصلا يعني حقيقة كده حين كرته أيا جاي أنا كده حين كرته وأجي وما بهنن التنجية عن إسكاهي سنة أيا جا بربري wargeeska middle east ayaa ka qoray marka koowaad wuxuu yidhi micnaha muran ayaa ka dhashay in wargeys faransiis oo ku jeesjeesa musiibada ka dhacday suuriya ee turkiga micnaha inuu ku jeesjeeso musiibo kumanaan bini aadam oo dhintay waa wax lagu qoslo sidoo kale ninkan lagu magacaabo Umar Suleyman Dr. Umar Suleyman oo kamid ah yani muslimiinta Mareykanka kamid ah wuxuu leeyahay micnaha asagoo ka hadlayo wargeyskan waxa uu qoray uma baahnin micnaha ay leeyihiin taangiye ina u dirno sidaas ay leeyihiin buu ku leeyahay ayagoo dabaaldagayo waa qoraal aad iyo aad u liito mar walba sida uu leeyahay طبعا shakina una ku jirin xaqiiqana ah mar walba waxay ku jeesjeesaan geerida kumanaan muslimiin oo dhintay geerida kumanaan yaqiin institute ayuu macahad lagu magacaabay yaqiin ayuu madax ka yahay aasaasayna Dr. Umar Suleyman mar walba waxay ku jees jireen geerida muslimiinta kumanaan muslimiin ah macna arrinkan inay sameeyaan waa mid u caadi ah faransiiska taas waa bini aadamadiina laakiin arrinka macnaha xun يعني والده وين حتى لدلعين كان أنا لقاها اللي كرين ضدك مساكين تولي بحتانا كوانا قمت لقاها دعينها معناها يوروبيان والبح ويعني إنسانية أي يقانان كراهية ينعيبك أن وحلوية قان أمضاهن كلا سيدو كلا الجزيرة أي قرتي أيضا موضوع عن كهذا ليس يعني أن لا داعي لإرسال دبابات كاريكاتير شارلي إبدو يسخر من زلزال تركيا ورجيز كاس أيا كجيس جيس هايو دول جرير كي كدعي تركيا يعني أن ضدكو يعني هذا مركز قشط تركيا ويبهدلين تركيا ما أهن تركيا وادد يكلول أيو يكلولهين يا إلهي دد وحاوي معناها كذا أجو waxaad ku tilmaan iyo kan ugu sareeyo dhamaantood yani shay turki ayaga ku saabsan hadaad faraha la soo gashay dhagtay ka goyn marka turkida way galeen yani way bahdileen yani sidoo kale aanu imaano TRT macruufa turki kanaalkan yani anti television yani luqado kala duwan leh macnaheedu wuxuu leeyahay dabaaldega wax u eg shaytaanka oo kale anshaxumada sharta wargeeskaas faransiiska ayaa ku jeesjeesayo dadka ku dhintay yani dhul gariirka ka dhacay turkiga midaas waa xaqiiqada yani aan qarsoomeynin wax yar laakiin aan kula wadaago halkan kelmado muhiim aan kula wadaago yani insha Allah aan rajeenayo waxyaabo badan inay ku muujin doonto maxay macnaha ayaga u farxayaan ama ay ugu dabaaldegan ama ay caadi u arkaan halka adiga yani fiiriya waxaad ku taala yani bariga Afrika oo kale wad murugaysan tahay shakil aan wad murugaysan tahay qof Soomaali ah tahay مسلمة وحد كم مرجيسان تاي واحد كورع تركيا سوريا وحد كم مرجيسان تاي لكن درس كذا غريغا يعني أن بلغاريا رومانيا محين قدريمين معناه يعني آد محين قدريمين كدبلوماسي أهم ولا جاي بقريين لصاصر لكن كشعب كعادي محين قدريمين أنا كل شيء جاي ما حسوس تاد بلوجي دجال كيوكرين موضوع عن مرة قاضني وحيديه جرين ورياش يوروبيانكا ayagoo aad u murugaysan ayagoo aad ula tacaatufsan waliba ma ahayn iska dheh ma ahayn ama macnaha inay been sheegeen maan si dhab ay ka ahayd inay murugaysnaayeen oo ay lahaayeen yani waa dad cadaan ah waa dad kristan ah in ay dhintaan ma astaahilaan ma xasuustaa si fiican ay xasuustaa haddaba maxaa keenay in ay sidaas dhahaan tusaale kale ka waran hadda wariyaashaas Ukraine joogay yani sidaan oga u qiireysnaa midii Mareykanka ayada Poland joogtay lahayd dadkan waa kristan caad ma astaahilaan waxaan inay ku dhacaan yani hadda dadkaas wariyaashaas dhamaantood hadda soo qaado kadibna aad geysay magaalooyinka Turkiga dhul gariirka ka dhacay yani iyo Suuriya hadda aad geysay مثلا Ghazi Antab yani Hatay hadda aad geysay kale
antaaliya sidoo kale haddii aad geyso ama waqooyiga suuriya aad geyso ma dareemayaan talow dareenka ay dareemayeen markay joogeen ukraine ma dareemayaan haba yaraatee ma dareemayaan yani waxaa laga yaabaa asagoo guri qoys dhan uu ku baaba'ay ku dumay ag taagan war ka soo diray inuun waxba dareemin caadi iska yahay tan una kala hayn haddaba sirtu maxay tahay sirtu waa shay bini aadamka si kastuu been u sheego una inkiri karin mar kale ma xasuustaa yani dabayshii ka dhacaysay maraykanka waxaa ka dhaca inta badan dabayla ka dhaco yani caasiir ayaa ka dhacda haarikeeno kala duwan ayaa ka dhaca mar walba gaar ahaan koonfurta maraykanka california miami waxaad maqlaysaa intaasoo yani qof ayaa gurya beelay yani hadda xitaa mar aanan fogeyn dhowr usbuuc ka hor may ahayd dabayl weyn ayaa ku dhufatay yani oo xilliyada qaar magaalooyin dhan ayaa aasmo laakiin adiga maalan ka soomaali ahaane talow markaad CNN ka daawanaysa ama aljaziira ama ay micnaha aalad war markaad ka daawanaysa maxaa dareenta adoo runta ii sheegaya dhagta ii soo dhow maxaa dareentaa caadi waa daawanaysaa laakiin maxaa keenaya in adoo Soomaaliya joogo weligaa Turkiga aanan tagin aad ka murugooto maxaa keenaya ya Allah waxaa jira wax lagu magacaabo anaa ka muslimiin ahaan anaga aan adeegsano jasad waahid hal jir sida rasuulku kugu tilmaamay muuminiinta kaanamay hal jir inay yihiin yani haddaad Soomaaliya joogtaa waxaad ka murugaysanta iigoorka maalan yani Turkistan dabarshiinaha uu ku bahdilaayo ku cadaabay waad ka murugoonaysaa marka daawanaysa Falastiin Gaza waad murugaysan tahay laakiin dhinaca kale Ukraine ama maalan Mareykanka haduu ku dhaco kale ilaa heer ma dareemaysid ka bani aadanimo ahaan yani waa laga yaabaa laakiin dareen waxaa jira aan la fasiri karin dareen waxaa jira macnaha rabbaani oo cajiib ah oo ah jasad waahid hal jir yani kaanu jirkaada inuu yahay oo kale halka ayaga ay aaminsan yihiin yani ummad walba waxaa jirta waxyaabo ay leeyihiin kan wuu noo eg ayaga waxay isticmaalaan wax lagu magacaabo wuu noo eg yahay adiga ka muslim ahaan hal jir ayaad aaminsan tahay ayagana wuu noo eg yahay yani hadda tusaale ahaan khilaafka u dhaxeeya tusaale ahaan yani Giriiga iyo Turkiga yani hadduu khilaafka wax yar soo yar dhex maro inta badan wadamada galbeedka waxay dhahaan waa khilaaf u dhaxeeya caalamka horta ah iyo micnaha caalamka kale ayagoo macnaha Giriiga oo waliba dal kun mar ka dambeeya Turkiga ah yani aanan isu dhaweyn ah yani ku tilmaamay kaanama inuu yahay dal yani xadaarad leh dal macnaha loo jeedaa macnaha caalamka horta ah ay dhahaan caalamka horta sababtoo ah waa Kristan يعني ونقدين أما نوع سيئة طبعا يعني حضارتنا ذي كترسين يوكرين أو كله أي أقوم مرقودين انتاسو يعني أن لعاق وحضرتي روش كوكو سمينا يعني معناها بنوك تكن صابتوا كوان وحبان الشبانة يعني هذا فير حتى إسرائيل مشروع سيركا إماشكو أبورين يعني فيريا ما لو مركي غزة أنا نعرفهم دانتا قلبات يهود وحيد لين عيدا كإسرائيل وحيد لي يعني تبنية فلسطينيين كدبنا قف فلسطين أياد دي لتضبي يهودا مريكان كشير جرائد لا وأرن كان عالم كهرتا يعني فيريا وأرن كان عالم كهرتا الأرن الأقبال كرماءن أرن ليالي كرماءن مركا سوى البقى اسكو ديان بان يعني أن عيدا أنا وحكا قليل أرق أم إرجي هبل وحكا قليل أرق لا وحد إذن مذايا إسنجرين يعني كوجمو حسابنا إن أتكمت عالم كحرتا ومن أكيد جسد واحد نمتيدن أسكودين متيدن مركا وح وتعاطف كو سمينا يملها معناها حقيقة ربط ستاس أي كل هذا يعني واقع ستاس أي كل هذا تصالح كلام كوسا قاضي أفغانستان markii wax kale laga soo tago macnaha Afghanistan wadamadii ku duulay inta badan yani galbeedka u badnaa Mareykan Ingiriis Poland yani Yurubiyan ay u badnaayeen intooda badan wadamadaas iyo Afgaaniyiinta macnaha shacabka Afghanistan macnaha wax mideeya ma lahan wax ka dhaxeeya ma lahan yani macnaha waxa loo jeedaa wax ay iskugu imaadaan ma lahan hal shay iskugu imaadaan ma lahan sidaas darteed askarigaas galbeedka ah ee Afghanistan tagay markuu la tacaamulayo qofkaas yani Afgaaniga in uu dilo way sahlan tahay fadeexada kala duwan ayaana dhacay mar askar Australian guuto socota waxay soo galeen tuulo yani dad iska beerelay masaakiin ay degan yihiin way laayeen way dileen marka askarigaas markuu dilaayo ma dareemay macnaha qofkan wax inuu kala dhaxeeyo yani hatta anigu lagu magacaabo muxuu ahaay Prince Harry Ingiriiska maalin uu kitaabku soo saaray wakiila 25 qof Afgaan ayaan dilay يعني كورا نينكاس haduu dhihi lahaa 25 qof boolad macnaha in Polish ama Denmarkis ama Ukrainian ayaan dilay haduu ilaa ka waran 25 maxaa lagu sameyn lahaa macnaha uma arka inay bini aadam sababtoo ah aqliga iyo waaqiciga wax kasta wuxuu ku leeyahay wax kulmiya ma lahan yani Afgaankaas muslimiinta ah iyo cadaankaas Kristanka maxaa kulmiya wax kulmiya ma lahan sidaas darteed 20 sano ay joogeen Afghanistan waxa ka dhacay waxyaabo macnaha aqliga bini aadamka aan gali karin waxyaabo aqliga bini aadamka aan gali karin oo yani maxay yihiin yani maxaan mideeyay maxaan iskugu imaanaa
يعني هذا تصالك الأنكوسة قاضي يعني تصالك الأنكوسة قاضي وحبة نكون موجناية معناها حقيقة يدرين كربطة يعني سكة بين لغو وشيء ما قرين كرتد يعني هذا التكرار ده ما يقع دور بقولة كيلومترية كوجران معناه التكرار وينو دوين اسكو منطقة أيام كقولنا وكريستن أرثوذكسة دجال دي كسعودي يعني هذا إلى صورة يعني دولان أيا مثلا أنا ديارها عيدا يعني إثيوبيا أمامي أحمد أيا دقي مثلا أنا مكلا مقالة ده dad badan ayaa ku dhintay ka bani aadan ahaan yani waa laga yaabaa inaad ka yaranaxdo dumar iyo caruur dhintay waad ka naxaysaa akiid laakiin dareenka aad dareemayso markaad aragto qofkaas Suuriyaanka ama Turkiga ama Falastiiniga kumanaan kiiloomitir ka fog isku mid ma ahan yani kan dariska way ma dareemaysid maxaad ka soo dareemaysaa kun hay'ad haday iskugu imaadaan arkan kuma sharxi karaan sababtoo ah mafhuumka jasadka oo ilaahay rasuulku tilmaamay mu'miniintu inay isu yihiin dadka muslimiinta kama thal al-jasad al-wahid إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني كأنه هذا أدق عنتها دي لقاها مسيحان كرتها يعني قعنتها دي مدي أي كاغويس مسيحان كرتها مسيحان كرتي ويكو حنون يسا سببتا حالة أدقو مروغيسان أد أصيحاتي مركا داوتي مقالة كإيمانا تركيا إيو كإيمانا يعني سوريا وأرين كانوا كالي لكن لقيا ومرايكان كإيماراس مركا تكو أركتا إنو اسكعادي هاي marka arrinkan yani wargeyskan Faransiiska yani had aniga shakhsiyan ka Umarana dad i weydiiso waxaan ku dhihi lahaa waa yani maxaa kale laga sugay macnaha maxaad ka sugaysaa kale yani waxa kale ka sugayn lahayd ka sugi lahayd maxay ahaayeen yani maxaad ka sugi lahayd maxaad ka filan lahayd intaas un baad ka filan lahayd خلاص wax kale laga ma filanaayo yani inay ku faraxsan yihiin waxaan xasuustaa sidoo kale aan kula wadaago waad xasuustaan طبعا يعني dhowr sano ka hor ma 5 sano ka hor bayd ma 6 sano ka hor meelaas qiyaastii ma sakayar talo Allahu a'lam wallahi بالضبط ma xasuusto يعني si fiican ma xasuusto waqtiga ahayd laakiin ma fogeyn xarameynka ama aan dhahno xaramka Makka al-Mukarrama waxa soo dhacay mid kamid ah yani biraha dheer dhismaha wax lagu dhisaa soo dhacday waatii ay ku dhinteen yani dad badan ayaa ku dhintay yani tobanaya qof ayaa ku dhimatay yani musiibo waxay aad u xanuun badan wargeysa galbeed ayaa ka hadlay waxaan xasuustaa mid kamid wargeysada galbeedka ayaa soo dhigay arrinkan ومعناه كهلاي وحولها يعني انت قفا dhimatay sacuudiga waxa soo dhacay baalkaas soo birtas weyn ba soo dhacday commentiyada markaad akhriso yani hal commenti oo xitaa si caadi u hadlaya ma arag dhamaantood way jeesjeesayeen يعني dhamaantood waxay leeyihiin ku iska qoslaay kula yani waa aargudashadii 2011 koodii macnaha 12 September ayaa aarguditaan yani hal qof oo qaab bini aadanimo ama insaaniyad u fiirinaya ma lahan oo macnaha sababtoo ah yani waaqo wuxuu ku leeyahay sabab ay xitaa uga murugoodaan ma lahan yani wax kulmiyana ma lahan marka la rabo in laga dhaadhiciyo in yani cid meel kale ka imaaday safiir cadaan oo halkaas ka imaaday ayaa ka naxayo safiir hebel ayaan kala hadalnay in waxaas noo sameeyo macnaha aqliga iyo dareenka iyo waaqac ilaahay bini aadamku abuurayaad leedahay waxba kama jiraan dhalantaadkaygan ani aan samaystay bugt ahaan yani aan raaci u hogaansami abadan yani hadda waka inta badan dadka macnaha hadda Turkiga iyo Suuriyaanka ka naxayo waa muslimiin cid kale ka naxaysa malahan qaab diblomaasiyadeed dawlaha waa mid caadi inay dhahdo dawlad hebel yani waan garab istaagan waa murugaysanay kan inay dhahan dadka xitaa fiir waxa arkay had fiiriya Sacuudiga oo kale tabarucaad ay shacabka caadiga aruurinayaan isla waqtigaas fiiriya subhanallah yani xitaa liberaaliga ma taqaana cilmaaniga ah ee ayaga caabudo ayagu ku mabdaaya yani had fiiriya Sacuudiga dadka muslimiinta caadiga dadka caadiga shacabka caadiga yani xitaa xukuumaddu way u ogolaatay yani waa loo tabarucaya laakiin kuwa waxa jira liberaaliyiin ah oo Turkiga iyo ka islaamnimo u nacab liberaaliyiintaas macnaha afka carabiga ku hadlayo waxay leeyihiin kaan yani inay ku faraxsan yihiin yani xitaa mid caan oo saxafiyad ah oo yani bahada maaratay MBC iyo al-Arabiya yani gumaysiga Mareykanka Ciraaqi u sacabatumay waxyaabahaas yani waxay ku leedahay waxan waa been يعني من رميسان كرتا إني لا ده الجرير كان تركيا دعي وابان يعني تركيا جا سمي وواح ملاجا أردوغان مركا أيضا ما فهمي كرتا نفتر كذا يعني قف قصاص ما فهمي كرتا مفهوم كجسد واحد ما فهمي كرتا هل كحتى وحن أركاي يعني إن عبد العزيز التويجري لقوم قعبوا سياسي نها ما شاء الله إن سعودية يعني جوينا يساقط حتى قيس كآل سعود 100 تلو يعني حتى قبائل مروق أيو كترينايا وله إله مسلمين تأجرجار marka qofka si kastuu yahay talama in iimaan uu leeyahay mafhuumka jasad waahidka yani fahanka jasad waahidka uu yaqaan uu haysta laakiin taasoo kale yani xitaa adiga kaamidka wuxuu aaminsan yahay inay yihiin mutaxadiriin wuxuu aaminsan yahay inay yihiin kuwa ilbaxa hormarsan in yani xiqdiga iyo karaahiyada shucuubta dambaysa lagu yaqaan in ayagu xasiina aqoonin laakiin sida Ibrahim qaalin ku soo sheegay wuxuu yiri waa baraabirada cusub yani wuxuushta cusub marka arrinkan waa inaad fahantaa waxaad ogaataa macnaha in uusan jirin
يعني تعاطف هبا يراته إن وح سبب أو أما قف عدانة أما صفير عدانة أما أيا كان ما أسكري أجنبي أو كودين أهين إن وهل بقول كيبا يعني أما وكان حيا ما أصلا لبعضتك وهيست وفهمايا ما بدريمايا أصلا يعني هذا الجيت هذا قنيت مدريمي وأساسه كلام مدريمايا أصلا صوبته يعني كونكشن بمجرى اصلا ان كنت المانع معناها موبايل اذن انترنت او هيسن ما مستعملنا كرت معناها انترنت aan على جدا يعني كونكشن اياد u baahan tahay كونكشن كمسكحيا بمجرى dareenkaas مجرى يعني هذا adiga fiir adoo dalkii joogo ayaad connection waxaad ku xireysaa yani haatay iyo waxaad ku xireysaa Ghazi Antay waxaad ku xireysaa Suuriya waa walaalaha yani fiiri connection wuxuu kugu xireysaa sidoo kale Gaza fiila kaala dhaxaysa isku keen xirto Igorka Turkistan tabari fiila isku keen xirto maxay tahay yani arrinkan مفهوم كجسد واحد كوي لكن الربا إن يعني أن واسع نمدا إسلام نمداس ولالت نمداس أنا حتى أباهنين إن لا شرحه حتى أنا لا شرح كرين إن الدسك إلوده يعني خلاص صفير هبل عابد يعني أن أفريكان كا يعني أن أيها ولا الدين تطنن هايستا عد كلا واحد كاجا شمالهن تركي وعادي واحد كاجا لمن عرب واناق واحد كاجا لمن خلاص أصعبي يعني أن هذا كوان أصعب صفير كان عابد خلاص السلام عليكم وي لكن islaamnimadu waxay ku leedahay midaas yani aad ka naxaysa keenaysa inaad ka naxaysa walaalkaagas aad garab taagan tahay cid hadda u kala ordaysana oo yani Algeria dad baa ka imaaday yani qadartan dad baa hadda ka tagay meel walba muslimiinta iskaga imaadeen yani garab istaagayaan ma arkaysid laakiin yani مثلا qof Greek ah deris la yani Armenian deris la yani Bulgaria iyo Romania xagga ka jirto oo u imaanay ma arkaysid sababtoo ah ma jirto wax isku connection ma jiro marka waxaan rajeynaa insha Allah inaad mawduuca wacyiga aad ugu dadaasho waxyaabahan aad fahanto mawduucan taanu ku eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh